كسر دوالة برنامج كني عنا كرنتا أنا جوا شيف عبد العزيز عاو عندي صبر نجيا حبكة وعن النص بيو تون السلطة ده بس سؤال شو حايت هاي تون السلطة بحوك قومية تون السلطة وحوك قومية هاي ملاينا نوع اللي يغانو تونا وقصعها لا بحب وقصع فيها كميرين mixed vegetable خضار وصدر دري وحوك قومية هاي بيزل عربيها بيزل لو يقال وحوك قومية هاي بصل وحوك قومية هاي تفاح وحوك قومية هاي قجار وحوك قومية هاي قجار أما كمبر وحوك قومية هاي لمدنان عصبو وحوك قومية هاي سبينش وحوك قومية هاي إيطاليان سيزنينج أما دي كله كبسون عليهم درايد لقى دقي يورجانو وعلاج وصدر دري وحوك قومية هيد بيبرز أو درايد وحوك قومية وورشستر صوص وحوك قومية هاي صويا صوص أنت هاي مسكوتريا waxaan kaloo dhinaca kale aan soo subsaday hore u soo subsaday oo aan siin doono weekka soo socda ama weekka dambe hadda waqti helma oo Ilaahay yiraahdo sooska nooca aan ka subiyay yellow pepper waxa weeye waa barbarooniga nooca jaalaha waa ka subin kartaa cagaarka waa ka subin kartaa gaduudka waa ka subin kartaa sooskan waxaan ka subiyay barbarooniga jaalaha habka sooskan loo subiyay waxaan siin doonaa weekka dambe hadda alla idmo aad iyo aad u qurxoon yahay صوص كاسو نوعي سلي يراهدو yellow pepper أما red pepper كلي ويك طبعا سيدونا هدو الله إن شاء الله تعالى وأنا وجدان هذه هذا الكل هاي هذا معين ما شاء الله فيرتست هذا سيدونا هدو الله يراهدو واحد كلو دين عكلا أكو هايستا أكل bread crumbs يبر وحنا سوقاتي نيايو yaanyo ayaan soo qaatay dhexda waxa aan ka galiyay spinach dhinaca kale waxaan kaga dhajiyay basal oo si isla u gooyay si maaragtay barnaamijka hudud wuxuu macnaha in appetizer kan hudud wuxuu soo baxaya maaragtay appetizer aad iyo aad u qurxoon basasha iyo yaanyada waa inay isla eg yihiin markaad goynaysid make sure basal weyn iyo yaanyo weyn oo isla eg dhexda ayaa ka gelinaysaa maxaa la yiraahdaa spinachki si waxa u saaraysaa saddex caleemado waaweyn oo si istaafay toothpick waa la geli kartaa xarig waa ku xiri doontaa waa ku xiri kartaa raad si doon hadda ku soo dhawaada barnaamijkeeni cunno karinta loo magac baxay cunnadii wacneed oo ka daawanaysan Somali Food TV meesha joogtaan daawasho wanaagsan waxa aan soo qaatay digsi waxa aan shubtay saliid markay kululaatana waxa aan ku daray basasha markay si fiican u shiilmato ay jilicdo waxa aan ku darayaa mixed salad iyo waxaan ku darayaa basil waxaan kale oo aan ku darayaa hal qaado oo coriander xawaajka nooca loo yaqaan coriander waxaan ku darayaa tufaax aan yaryareeyay iyo qajaar waxa aan soo qaatay malaygii tuunada ahaa oo gasaca ku jiray biyihii iyo saliidii dhacaankiisa ayaa si fiican uga miiraysaa kadibna waxa aan ku darayaa Italian seasoning ama se hadii kale coriander iyo oregano oo maaragtay qalalan basbaas oo dried oo qalalan waxa aan soo qaatay basal oo si isleeg u gooyay iyo yaanyo aan si isleeg u gooyay dhexda ayaan waxa aan ka gelinayaa spinach ayaan dhexda ka gelinayaa kadibna waxa aan soo qaadanayaa xarig afarta dhinac ayaan kaga xirayaa basasha iyo yaanyada waa shiilaya waxa aan ku shiilayaa saliid waxaana aan marinayaa ukun iyo maaragtay bread crumbs hodhootana waxa aan yeelayaa xariga waa ka furayaa kadibna waxa lagu cunayaa maaragtay tuna saladka digsi ayaa waxa aan ku shubtay saliid waxa aan ku darayaa spinachki ilaa maaragtay spinach oo ka jilco wax biyahaba yaraatay aan ku darayo ma jirto dhowr qaado saliid umaan ku daray kadibna waxa aan ku darayaa markuu wilted oo noqdo soya sauce iyo waxaan ku darayaa Worcester sauce iyo cusbe waan walaaqaya waxa haboon maaragtay spinachka biyo ayuu dhalayaa biyo waxba ku dari maayo ujeedaan biyo ayuu dhalay
waxaan ku darayaa in yaro maaragtay spacekii maaragtay red pepper ka ahaa dried ka ahaa iyo waxaan ku daray Worcester iyo waxaan ku darayaa maaragtay soy sauce iyo in yaro cusbe 3 daqiiqo ayaan qaadada isla qaadsiinayaa dhinaca kale waxa aan soo qaatay yaanyadii iyo basashii waxa aan dhex gelinayaa burka ayaan si fiican u dhex gelinayaa kadibna waxa aan yeelayaa ukuntii ayaan dhex gelinayaa waan maaragtay si fiican ukunta maaragtay labada dhinac kadibna waxa aan dhex gelinayaa oo geesaha ka marinayaa iyo dhinacyadaba bread crumbski saliida ayaan ku shiilayaa dhinac walba ilaa uu ka guduuto dishkan aad iyo aad buu u macaan yahay basasha iyo yaanyada iyo spinachka dhexda iska geliyay marka make sure marka aad shiishid inaadan xariga ku hilmaamin xariga ka fur kadibna maaragtay presentationkiisa sixniga maaragtay saladka waa la dhigi kartaa waxa aan soo qaatay sauce-kii aan ka suubiyay barbarooniga aan ka suubiyay waa la tusin doonaa sooca noocan maaragtay sauce-ka barbarooniga qaabka loogu suubiyo wiilka dambe hadduu alla idmo sixni ayaan soo qaatay sauce-kii ayaan maaragtay dhexda ka dhigayaa qaadada ayaan la marmarinayaa kadibna waxa aan yeelayaa yaanyadii oo xariga aan ka furay iyo basashii ayaan dhexda ka dhigayaa waxaan kale aan soo qaadanayaa tuna saladkii dusha ayaan ka saarayaa oo si isla eego aad iyo aad u qurxoon oo si presentation fiican u siiyo ayaan waxaan yeelayaa dusha ka saarayaa waxa aan soo qaadanayaa spinachkii oon maaragtay aan ku soo suubiyey soy sauce-kii iyo Worcester sauce-kii ayaan dusha ka saarayaa spinachkii ayaan hadda soo qaadanayaa dusha ayaan ka saarayaa waxaan kaloo aan dusha kaga sii darayaa aan geesaha kaga bilbilayaa si uu u siiyo maaragtay texture iyo si uu u siiyo maaragtay qurux aad iyo aad u qurxoon sauce-kii ahaa barbarooniga aan ka suubiyey waa la tusin doonaa qaabka loo suubiyo noocan sauce-ka dusha ayaan kaga daray saladkii waa dhameeyey spinachkii ayaan dusha ka saaray kadibna waxa aan dusha kaga sii daray Italian seasoning oo qalalan ayaan dusha kaga daray waxa aan kaloo soo qaadanayaa 3 caleemood oo maaragtay spinach ayaan dusha maaragtay ka saarayaa waa ku qurxinayaa iyo cherry ayaan ku qurxinayaa si isleegsi u siiyo qurux maaragtay aad iyo aad u fiican dishkan aad iyo aad buu u macaan yahay waxaan kaloo aan yeelayaa aan dusha kaga darayaa spaceka nooca loo yaqaano maaragtay red pepper oo maaragtay flakes oo dried aan dusha kaga darayaa waxaan kaloo aan soo qaatay aan soo goostay liima dhanaan oo aan maaragtay spinachka maaragtay dusha maaragtay aan ka maaragtay dusha ka saarayo maaragtay saladka si uu siiyo qurux waxaan kaloo aan yeelayaa wiiga dambe hadduu alla idmaa waxaad Somali Food TV ka daawanaysaan meel alla meesha aad joogtaan aad ka daawan doontaan barnaamijyo cusub oo ay ka mid yihiin qaabka sida loo suubiyo 4 nooc oo maaragtay cream de caramel oo maaragtay cream de caramel 4 nooc qaabka loo suubiyo dishkan waa ujeedaan waan dhameeyay so far it's really very beautiful aad iyo aad buu u qurxoon yahay aad buuna u macaan yahay maaragtay isku day isagoo kale inaad soo disid anigoo ah Sheekh Cabdicaziz Dhicis barnaamijkayga aad ka daawanayseen Somali Food TV meel alla meesha aad joogtaan waa mahadsantihiin waxa kaloo aad ka daawan doontaan YouTube-ka iyo waxaad kaloo ka daawan doontaan via maaragtay CTV iyo waxaad ka daawan doontaan via SPNN television anigoo ah Sheekh Cabdicaziz Dhicis wixii email iigu soo dira Somali Food @somalifood.tv meel alla meesha aad joogtaan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh